السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومستر عريف أما محمد ميسا أو تقانid maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago main points tusaale dadka xayisiinta kiciyo ganacsiyada ha ahaadaan yani qof walba oo social media xayisiin ku sameynaya oo lacag ku bixinaya waxaa muhiim ah inaad ogaatid yani ama laga rabaa inaad akhrin kartid reportka xayisiinta ama inaad la socon kartid yani xayisiintaada micno ma sameynaysa inaad xayisiin aad iska sameysid lacag kaaga baxdo waxaa muhiim ah يعني إنا أقرين كرتت ريبورت حيسينتا يعني إنا أوجان كرتت حيسينتا مفيع عن تهاي أو بيزنس كاغ مفيع عن تهاي بس حيسينتا لعيا كاغ بحس كليه نمبر 1 marka xaysiinta afirinays waxyaabaha muhiimka ah ka fiirinayso waxa kamid ah yani inaad kala taqaanid horta wax loo yaqaano reach iyo impression reportka marka aqrinayso waxa ugu horeeya arkayso waxa waa reach waxa la dhahaa saal aan ka soo qaadno Instagram on Facebook xaysiinta ka isay 100 qofood aragtay 100kaas qofood waxay noqonayaan wax loo yaqaan reach xaysiin dadka ay gaartay waxa jira wax loo yaqaan impression waxa la impression wax kala ma ahayn yani impression waxa la dhahaa xaysiinta marka sameeysid ka soo qaad kun qofood xaysiinta aad aragtay kunkaas qof waxa ku jiri karo yani hal mar inuu saddex mar oo Facebook scroll ku sameeynaa inuu isla xaysiintii saddex mar arko ama afar mar ku arko marka waxay noqonayaan impression yani number of yani meeqad mar xaysiinta dadkan la tusa waxa loo yaqaan impression marka waxa muhiim ah xaysiinta oo laga eega tusaale badan dadka Soomaaliyeed isticmaalaan xaysiinta marka sameynaysid waxyaaba ugu muhiimsan laga fiiriyo waxa waaye landing page ila leedahay wax la landing page waxa la dhahaa yani final destination ka oo qofkan tagaayo tusaale xaysiinta marka oo click ku dhaho video ha ahaado ama yani post ha ahaado ama waxa la dhahaa يعني any creative idea ha ahaato marka click ku dhaho meesha uu tagaa intee waay hadii laakiin adi oo automatic click oo ku dhaho sawir leh oo soo baxay xaysiintaas macna wala waxa gaar ah number 3 landing page ina leedahay landing page wuxuu muhiim u yahay waa meesha conversion-ka oo ka dhaco conversion-ka waxa la dhahaa tusaale yani qofka marka uu xaysiin soo arko information-ki oo helo oo click ku dhaho landing page-ka yani more information about product-ga aad iibinaysid waxa aad sameynaysid meesha oo ka helay waxa loo yaqaan landing page marka halka oo conversion-ka ka dhaca ama sales-ka ka dhaca waxa la dhahaa landing page marka waxa laga rabaa inaad landing page aad leedahay si xaysiinta yani waxa jiro waxyaabo kale oo la qiimeeyo oo ah yani waxa la dhahayo quality ranking يعني حيسينتاد ranking u gasho waxa laga rabaa in xaysiintaada ama waxa ay xaysiinaysid inay ahaadaan yani waxa relevant leh waxa ay iibinaysid marka mar walba xaysiinta aad sameynaysid waxaas dhan muhiim waay qaybaas kala duwan ka fiiri sidoo kale waxa fiirisaa yani quality ranking wax loo yaqaan yani waxa arkaysaa magaalada Muqdisho ka soo qaad yani kumanaan qofooda waxay sameynayaan xaysiin laakiin Facebook markaas soo gashid hal qof ama laba qof waxa ku arkaysaa in يعني قيمه hore ay soo galaan marka quality ranking taagan ina qiimeyn kartid laga rabaa way ani xaysiinteeda dadkii u arkeenin laakiin ani marka aan soo galo xaysiimaha kala oo arkaa yani waxa laga rabaa waxbaas meesha laga qiimeeyo waxa la quality ranking marka all these factors kan waxa u baahan tahay si yani expert ah ugu noqotid ina taqaanid skill-kaas marka waxa bixinayna program 10 days ah oo ku baranaysid yani all yani wax walba ku saabsan Facebook ads Instagram ad Google ads ka waxba soo idil oo aad ku noqonaysid expert tusaale hadii shirkadda ay ka xirtay amarka soo qaad account-kaaga blog la saaro sida loo xalay hadii yani company ay la shaqeynaysid xaysiintooda blog la saaro si loo xadiyo all these factors kaas iyo sida expert ah ugu noqonayd adka hadii aad u baahan tahay link-aan hoos